عروري وعرول تكفو وضعودان لبنان عينين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما بخير تقييمها يقاي هلا هي هو اللي قدامنا ساي وعنو ونكسو مركلي برامج عافمات كتير في قرقة إيدي وجري استوديو عن كل النهاية مقالة لندن. هذا وحنا نقصو قادنا سيد عدد أكل كالياشة لخاطيرة نيرست إيه هذا وحنا سنعرف تدوينها وي إذن تعاون يا إن فائدة أي وليهن. هذا برنامج كان وكدويها عاو برنامج هذا هره وحيقول قيب قادنا يا المرة اللي بعد سمع سمي دكتور سو كنت خصوصي قلينك أنا كونسلتنت كشقية أو وضع كان إنجليزكا إن دكتور بشير عبد الله منصور كسلو تي في غير مرة بعد أيانو دو هاي غدر وما سنتاي إن waxaynu ka soo hadalnay barnaamijyo hore oo magaranayay ay dadweynuhu inay nagala soo qayb galeen bal hadda maanta waxaanu doonayaa inaanu gogoosano hadalka Bashiir oo aynu ka hadalno bal hadda dawooyinka iyo dhibaatooyinka ay leeyihiin iyo marxaladaha ay soo maraan ugu horreynse waa maxay dawo okay qadar aad ayaa u mahadsantahay waana dhawahay dawo waa waxyaabo chemical ah oo loogu talagalay qofka bini'aadanka ah in laga hortago cudur waxaa loo isticmaali karaa in oo ka hortag ayaa qofka loo siin karaa ama daweyn cudur ku dhacay ayaa qofka loo siin karaya ma marka waxyaabo oo chemical ah oo la soo ururshay oo qofka bini'aadanka ah lagaga difaacayo cudur inuu ku dhaco ama cudur haya in lagaga saaro oo lagaga difaaco ayaan daawo ku magacaabi karnaa way Bashir bal hadda waxaa jirta dadka dawooyinka way wada isticmaalaan balse haddii la isticmaalo dawooyin fara badan oo ka badan intii lagu qoray maxay dhibaato keeni karaan combinationka oo dawooyinka ayaad ka hadlaysaa haddii waxaa jiro marka oo dawooyin tala badan qofka la siinayo dawooyinka waxay isku sameeyaan interaction way isdhex galaan qaar ka mid ah ayaa faa'iidooyinkooda hoos u dhacaya qaar ka mid ahna waxaa dhici karta in awoodda ay lahaayeen oo ay zaa'idiyaan marka dhibaato fara badan ee meeshaas ay ka timaado marka ay isku dhex dartid hada dawo hurda ah hada dawo xanuun ah tusaale la soo qaado hada ku dartid waxa dhici karta qofka in ay neefta ku xiranto ama 24 saac inuu ku hurdo oo khatar ee noloshiisa ay gasho marka waxay sameeyaan interaction isdhexgal ay sameeyaan qaar ka mid ah marka awoodiya hoos loo dhigayaa qaar ka mid ahna maxaan ku dhahaa awoodi ayaa badanaysa side effectigi ayaa zaid noqonayo dawooyinkan sida antibioticada oo kale ah dadka warfarin qaatanayo erythromycin oo kale waxa dhici karta in warfarin hadda halka yara warfarin waa dawo loogu talagalay dhiigga inay khafiifiso haddii aad antibiotic qaar ka mid ah la siisid dhiigga ayaa aad khafiif u noqonayo oo dhiig bax ayaa qofka ku dhici kara marka interactionka ama isdhexgalka dawooyinka isdhexgalayaan waa aad bay muhiim u tahay in la ilaaliyo marka la siinayo bac buuxda oo dawooyin kala duwan ah marka la siinayo qofka bukaanka ah marka isdhexgalkaas waa in la iska ilaaliya mana wanaagsana in dawooyin tira badan ah la isku qaato okay waxa jirta gartay Bashir dadka waaweyn oo kale marka dawooyin ayaa loo qoraa marka muddo ayay wadaan hada wax dhibaato oo ay magaranaysaa ku keenayso dadka waaweyn sida taqaanid jirkooda uma adkaysan karo sida dadka oo maxaan ku qof dhalinyaro ah oo kala marka dawooyinkan ay wadayaan oo continuous ka ah waxa aad u wanaagsan in sanadkiiba mar la baaro ama la jagareeyo dhiigooda kiliyahooda peerkooda waxa isbedel inay ku keeneen sida la socotid uma adkaysan karaan ama dhibaato fara badan ay ku keeni karaan dawooyinka tirada badan ay wadaan dadka waaweyn marka dadka weyn kaliya ma aha qadaro waxa la jira haweenka uurka leh waa inaad iska ilaalisaa dawada siinaysid waxa kale caruurta oo yaryar dawooyinka qaar ka mid ah uma adkaysan kara ama dosage-ka ama la siinayo uu ka duwan yahay dadka weyn waxa la siinayo marka waa very important maxaan ku dhahaa dadka waaweyn in laga kontrolo oo daawooyinka iska wado si kaliya beerka ama dhiiga ama dhibaato kale aysan uga imaanin okay waxay imika magaranaysaa in ku soo badanaya magaranaysaa wadamada
dawooyin aan Sax. asal ahayn sax bal markaa ama ma garanaysaa aan dawooyinkii kale aan la jaan qaadaynin ama ma Sax. garanaysaa wax sax healthy aanu qofka ka helaynin Aad iyo aad. markaa bal dawooyinka fiigii maxay yihiin ها dawooyinka aan tayada lahayn ama asalka ahayn waxaa laga wadaa dad ayaa waxay samaysteen warshad ama meel la tagaya soo samaysanaya dawo aan lahayn cadadii loogu talagalay sida aspirinka oo kale ama paracetamol 500 miligram meesha lagu yiraahdo hal xabo oo paracetamol inta la qaado ayaa 100 xabo laga dhigaya cadada ku jirto oo quantity milligramka xoogeeda ayaa hoos loo dhigaya 1 milligram oo kale laga dhigaya haddii aad sida dango oo kale u cuntidna aysan waxba kuu taraynin ama waxaa dhici karta in dawada laftirkeesaba aysan ka samaysnayn kiimikadii loogu talagalay oo wax asalka ahayd in wax kale ay ka samaysan tahay kaasoo ay dhibaato ay keeni karto waxaan maqlayaa xataa in la gaaray heer dambasta in lagu sameeyo oo maxaan ku dhahaa ambasaliigi oo la dhexgeliyo ayaan maqlay marka daawo fake ah ama daawo aan asal ahayn waxaa laga wadaa marka daawada aysan cadadii quantitydii milligramka waxtarka lahaa aysan lahayn ama daawo ka duwanba ay ka samaysan tahay ama wax ka duwan chemically oo dhibaato weyn fara badan gaarsiinaya qofka bini aadanka waayahay bal markaa bashir haddii sideen ku garanayaa inay dawadaasi asal tahay ama aanay asal ahayn ها اوكي وسؤال آد مهم واه ان سيدي لغو قرانا داودا اني اصل تاي اني سن اهين وهورتا ان آد بي و ادك تاي ان كلا ساري دودا ماداما اي داد اي سو بخين او طفا داد قطرة او داودي تي لبد صوركي وحي دن اي كو كينايان لكن waxaa jiro hay-ado oo mas-uul ka ah sida WHO-ga hay-adda caafimaadka adduunka waxay soo saartay guideline oo la raacaya dawada say u eg tahay nooca ay tahay awoodda ay leedahay liquid miya ma tablet ba nooca waxa ay ku imaanaysa kalarka ay ku imaanaysa ayaga ayaa guideline sameeyeen waxa taas iyadana ku xiga dawo kasta oo imaanayso asal raaceeda warshada laga soo bilaabo sameynayso ilaa qofka qaadanayo waxa ayagana group kale oo company oo dawladda ay samaysay oo MCHA la dhaho ayaa mas-uulka ah oo baarta oo garanaysa maxaan ku dhahaa dawadaas kiimika ahaan waxa ay ka samaysan tahay inta cadada ah ee ku jirta milligramka oo anfaca leh iyo in kale ayaga ayaa mas-uulka ah marka waa ayagana company kale haddana waxaa sii dheer sida loo socday oo loo taxadarayo dawo kasta waxaa loo sameeyay number baarkood ay dhahaan laba nooc baarkood oo kala duwan ah ayay leeyihiin oo lagu baaro marka lagu keeno ilaa haddii pharmacy leedahay saydili ku furan tahay marka lagu keenayo waa inaad iska jeegaraysaa baarkoodkaas maxaan ku dhahaa ay jeegaraysid ayaa muhiim ay tahay tan kalena waxaa hadda sidii heerarkan kale WHO kuwan kale organizationka oo waxa baaray maxaan ku dhahaa daraaga oo lagu dhahayo iska ilaali feega waxyaabaha ku qoran kartid waxa ka wada numberka ku qoran habka spellinga numberada ay ku qoreen oo isdhaafsan ileen qofka ilaan waa qof wax soo sawiray marka waxba ka qaldamaya ilaa iyo aakhir waxaa la gaaray hadda in loo sameeyo numberkaas koodkaas qofka oo gadanaya consumerka ah in uu diro SMS ama message uu diro messagekaasna loo soo jawaabo shirkadii oo asalka ahayd ay u soo jawaabto habkaas ayuu ku ogaan karaa hadda sida Nigeria oo kale waxay sameeyeen isticmaalaan programkaas oo mobileka ah ayay isticmaalaan marka aad ayaad u mahadsan tahay dadweynaha qiimaha iyo qayaalo waxaad naga daawanaysaan barnaamijkii caafimaadka ee ninkii jiray TV-ga qaranka xaruntiisa magaalada London bal aynu eegno warbixin ay ka soo saartay wadanka Nigeria drugska iyo dawooyinka sida lagu kala garto yara daawano Neka is buying Amatem, an anti-malaria drug, at her local pharmacy in Yaba, Lagos. There are many fake anti-malaria drugs on the market here, but thanks to a new technology, she can check whether the drug is genuine using her mobile phone.
All NECA has to do is text a number on the packaging to the Drug Enforcement Agency. Within seconds, she gets a reply telling her whether the drug is fake or real. The innovation is a very good one. It's very good because before now, we walk into a pharmacy, you buy a drug, you're not sure of the genuinity of the drug. And what you know is that you bought the drug and you walk out. But now, on your own, without anybody's assistance, you can actually know the genuinity of what you're buying. Staff at Nigeria's National Agency for Food and Drug Administration and Control in Yaba are behind the new technology. They spend hundreds of hours a week trying to detect fake drugs by testing them in laboratories. But it's not been enough to stop fake drugs getting into the country, and that's why the mobile phone technology has been introduced. We decided to resort to technology because, like I told you, with the sophistication in printing technology, the counterfeiters have become more sophisticated. The counterfeiters can copy and make copies of the genuine product that looks exactly like the genuine product. The technology is Okay. not only available for anti-malaria Bashir, drugs like bal hadda Amatem, adiga it's oo also yara dul used on istaagaya waxyaalihii kaaga baxay klibka yar saa u jeedaan waa newska ka baxaya waxa ay sheegayaan in markii gabadhu ay tagaysay maxaan ku dhahaa farmasiga ay ka gadatay daawada number ayaa ku qoran numberkii ayaa SMS ku diraysaa oo message ayaa diraysaa waa loo soo jawaabayaa in daawadu oo asal tahay oo ka soo baxday warshadii inta cadadii wixii dhan ayaa loo confirmareynaya originalkeeda haddii ay noqon weydo in aysan ahayn daawadii ayada ay rabtay ama daawo oo aan asal ahayn halkaas ayay telefoonkeeda ayay ka ogaanaysaa marka I hope annagana ummadana daawanayso in insha Allah maalin un la gaari doono annagana systemkan la soo dhexgelin doono oo la ogaan doono markaad farmashiga tagtid in adigana aa hore ka ogaatid daawada aad gadanaysa inay tahay daawo tayo leh oo asal ah inay tahay iyo in kale waxba inagama foga mar haddii Nigeria ba marayso wayna soo gaartay way Bashir bal haddaba dawooyinkan fiiga ama la soo biyeynayo ama ma garanaysaa daqiiqda lagu soo daray dhibaatooyinka uu leeyahay qofku markuu cuno okay si dawadii qadar waxaan niri dawadii caadiga ah marka la isku daray dhibaato la keenayaan imagine marka qiyaas adiga dawo aanay oo asal ahayn oo kiimika ah oo la soo biyey waxay keenaysaa degdeg cimrigaabida dhibaatooyin organada xubnaha jirka ah inuu dhaqsi inuu gaboobo inuu dhaawac gaarsiiso in organadii xubnada ka mid ah inay baaba'aan ama wax gaaraan oo isla markii qofkii uu u baahdo xubin in laga bedelo sida kili in la bedelo in wadan la bedelo in ay soo dedejiso in kili maxaan ku dhahaa beer la bedelo waxyaabahaas oo dhan inay keento ayaa dhici karto in qofka xataa uu u dhinto asagoon la ogeyn side effectado waxyaabaha qaarkood oo marka aad daawo soo gadatid aad ku ogaanaysa daawadan inay asal aysan ahayn waxa waaye side effect oo aan caadi ahayn caadi ahayn markaad kala kulantay laftirkeeda waxay ka tirsan tahay habka lagu ogaado in daawada aanay daawo wax jiri ahayn farmasiga ilaa aad ka soo gadatid waa istaqaanin waa garanaysaa oo daawadii halkaas loo dabageli karaa marka daawooyinkan aan asalka ahayn dhibkooda aad ugu weyn waxay sheegeen in dadka badanaa qaraxyada ku dhinta oo kale in ay ka badan yihiin dadka daawada disho oo aan asalka ahayn waxaa jira dad fara badan oo iyagu ma garanaysaay dawooyinka ka keena dibadaha ama ma garanaysaay dawooyinkii Yurub laga soo qaadanayay ma garanaysaay lahaa kuwatiga fiican midu eeg oo asal oo ma garanaysaay ama laga keenay wadamo aan imka doonayna magacaabo oo ma garanaysaay wadamadii wadankii aad uga buuxa waxaad kula talinay dadka Kenya ama soo waaridaya og waxaa jiro laba arrimood dad bacmushtar ka sameeynaya oo raba inay si ka taajiraan laqsi ay helaan ay lacag ku helaan iyo dad waxaa jiro oo aan ogeyn iska soo qaadanayo oo maxaan ku dhahay daacad iska ah dawadii soo qaadanayo warshadii iska aaminay ayaa jiro marka waxaan kula talin lahaa horta mid ilaah baan lagu daynayaa ninka khiyaanada wata ee feegada wadanku ku soo ururinaya in kastoo hadda ay loo baahan yahay in la sameeyo MCH organization baara daawooyinka in wadanka uu baahan yahay ummadana daawanayso tan labaadna dadka oo ka beec mushtari ka keenayo maadaama la soo saarayo hab ayaa soo baxay hadda saawadeed sida telefoonka oo kale in shirkadii ay la xiriiri kartay si toos ah soo saaray waxa ila wanaagsanaan lahayd inay la xiriiraan si toos ah meesha daawada ay ka soo baxdo aad ayaad mahadsan tahay
bal haddaba waxaa jira dawooyin oo la odhanayo qofku waa ku allergy ama uu bararayaa ama ma garanaysaa dawooyin maxay yihiin dawooyinkaasi allergy marka allergy waa runta oo korka dhan babararaya waxa waaye jirka baniaadanka wax alla wixii soo galo wuu iska difaacaa sida bacteria virus parasite wixii annagana soo weeraro hargabka ujeedid virusa keena waan iska difaacnaa oo waan ka hortagnaa marka wataan xumad qofka qabata oo la seexdo hindhiso madax xanuun waxyaabahaas ay keenayaan dawada marka oo qofka la leeyahay allergy u yahay macnaheedu waxa waaye jirka dawadaas wuxuu u aqoonsan yahay inay cadow ku tahay marka weerar ayaa bilaabanaya ka jawaabid uu ka jawaabayo dawadii jirka soo gashay reactionka uu bixinaya ayaa waxay keeni kartaa darajooyin kala duwan laga bilaabo kor cuncun barar carabkoo barara korkoo nabare fara badan ka soo baxo ilaa wax lagu magacaabo shock anaphylactic qofka inuu suuxo oo dhaco inuu u dhinto xataa ay keeni karto taas ayaa laga wadaa maxaan ku dhaha qofka waa allergic u yahay tusaale yar haddaan kusoo qoto penicillina ugu badan dad badan oo lagu dhaha penicillin allergiga u yihiin macnaheedu markuu qaato jirkiyaa weerar bilaabaya reaction ayaa dhacaya marka reactionkii uu dhaco xididadii ayaa weynaanaya collapsa dhacaya markaas ayaa dhibaatooyin carab fara badan qofkii uu la kilmaya isla markii carabkii wixii bararaya collapse noqona wuu dhacaya qaar ka mid aan allergy yar ileen darajooyin kala leedahay hor cuncun ama nabaro yar yar inay ka soo baxaan daawadu wuu fahmaya wuu dhibsanaya marka u horeysa maxaan ku ogaanaya inaan allergy ku haysan iska daay dawada way adag tahay su-aal aad u wanaagsan waaye oo adag inaad horey laga jawaabo mararka qaarkood isbitaalada waxay sameeyaan skin test maqaarka yar ayaa wax yar lagu mudaya irbad waa la fiirinaya reaction hadday samayso haddii kale marka haddaysan sameynin qofkaas waa la siinayaa laakiin waa runta oo kugu raacsanay tablet ya kaniini intaad ka soo qaadatid ma garan kartid inaa allergic ku tahay laakiin marka ugu horeysa aad aragtid in reaction aad ka bixisid calaamado uu ku siiyo marka dambe waa inaad iska ilaalisaa kaniinigaas oo aad dhahdid aniga allergian ku ahay waxaas lala socdo waayahay bal haddaba bashir waxaa jira dawooyinka oo kale in temperature lagu hayo kala gooniya ma garanaysaa heerkul heerkul intee leeg ayaad u baahan yihiin waa su-aal kale ayadana muhiim waad garanaysaa wadankii ma garanaysaa dukaan bay iska saarantay maanta aad iyo aad marka waxaa ugu wanaagsan ay dhahaan temperatureka 15 ilaa iyo maxaan ku dhahaa 25 degree centigrade ayaa ugu wanaagsan in daawooyinka caadiga ah ee u adkeysan karaan laakiin daawooyin qaar ka mid ah oo sida sharobooyin suppositor waxay u baahan yihiin inaad gelisid talaajad in la geliyo temperature oo hooseeya in ay ahaadaan haddii kale chemical wax ay ka samaysan tahay ayaa isbedel ku dhacaya marka oo adiga qofka uu furanayo waxaa wanaagsan pharmacy uu furanayo ama chemist uu furanayo waxaa wanaagsan in shuruud loogu dhigo in uu heli karo temperaturekaas oo lagu haynayo daawooyinka ilan adiga ummadii aad u qaybin doontaa daawooyinkaas sisan isbedel aysan ugu dhicin daawooyinkaas maxay dhibaato keeni karaan haddii aan la helin tayadii ayaa baaba'aysa chemicalkii haddii temperature high ah ku samaysid isbedel chemical ku dhici kara oo dhibaatay keeni karaan marka qanjidka noqonayaan baad leedahay dhibaatay keeni karaan marka side effectigooda badanaya ama inaysan waxba qaban ayaa dhici karto oo chemical ay isbedelaan saas darteed waxaa wanaagsan in temperature kii loogu talagalay inuu farmasiga awood u leeyahay marka uu furanayaba maxaan ku dhahaa farmasi uu magaalada ka furanayo okay waaya sidee looga hortagi karaa markaa dawooyinka fiiga ah iyo dawooyinka ma garanaysaa aan waxba tarayn temperature-kooda ka dhacayba okay waa in dad ay isxilqaamaan oo la sameeyo organisation xubin oo raacaya guideline-ka ay soo saareen WHO caafimaadka adduunka kuwa qaabilsan inay sameysaan MCR organization qaabilsan dawooyinka kaliya kasoo degaya furdadaha oo diyaaradaha keenaya inay baaraan ay ogaadaan ilaa ay ka ogaadaan as aan loo gudbin shacbiga laga ilaaliyo waxa la wixii sun ama dhibaato keenaya in xubnahaas la organisaare oo la sameeyo dad noocaas oo kale u yaala in la sameeyo tan kalena qofka markii lacala ay soo fakatay daawadii ay soo gaarto magaaladana dadka laftirkooda inay ka shakiyaan daawada habka ay u samaysan tahay way kala duwan tahay
wuu kala garanaya kaniinigan qaadanaya ma aha kan ilaan WHO wuxuu ku yiri size-kooda color-kooda adeegooda waxooda dhan waa wax qoran oo la raacaayo marka kaasna asagana qofkii wuu raaci karaa oo baakadii numberkii ku qornaa ilaa tii hadda adiga aad ka dhawaajisay insha Allah wayna soo gaari doontaa adheysay oo numberkii telefoonka mobilka la isticmaalayay ilaa ay test ku soo noqonay aad direysay waa sax ah inta illa laga gaaray heerkaas waayahay maxaad kula talin lahayd dadweynaha waxaan kula talin lahaa qadarow waxaan kula talin lahaa maxaa la yiraahdaa in dadka laga ilaaliyo daawooyinkan tirada badan oo la isugu daraayo oo dhibaatooyin keeni kara iyo dadkan inay iska ilaaliyaan inay qaataan daawooyin tira badan oo falgal sameynayo oo hadhow dhib u keeni karo in la ilaaliyo maxaan ku dhahaa soo galitaanka kowga ay soo galayaanba in loo fadhiisto meelaha ay ka soo galaan furdadaha diyaaradda ay ka soo degaan meesha siday ku soo galaanba meeshaas in laga bilaabo in laga baaro daawada la hubsado intuusan shacbiga aan gacanta loo gelin ama ninka farmasi aan loo gelin dadka ka beec mushtarayana inay ayagoo og in ay daawadan ay tahay daawo aan waxba taraynin dadka ka beec mushtaraya kuwaasna waxaan kula talin lahaa in ilaahay ka baqaan oo dadkooda ummadooda aysan halaagin aysan lacag kaliya fiirin waayahay aad ayaad u mahadsan tahay ugu dambeyntii waxaan ku siinayaa dardaarankii u dambeeyey ee ma garanaysaa ee dad aan okay midda aan dhihi lahaa qadrow waxaa horta aad muhiim u ahaan lahayd waxyaabahan aan daawooyinkan kaga badbaadi lahayn waxaa ila wanaagsanaan lahayd in la raadiyo Nigeria maadaama ay heleen telefoonkan mobilkan oo jawaabta kaas xooga in la saaro oo wadankii insha Allah in kaas laga helo aad ay wanaagsanaan lahayd midda kale in dadka ka beec mushtaraya ay ogaadaan asalka warshada ay ka soo baxday ilaa iyo qofka la siinaya oo isticmaalaya laftirkiisa in asagana la ogaado daawadaas jidka ay soo martay inay asal tahay oo tayo leedahay daawo rasmi tahay in la ogaado ayaa aad ila wanaagsanaa wadankan UK aan joogno waxaa jira dadkan qaabilsan MCHA-ga ayagoon daawo soo marin isan barcode-kii numberkii jagarayn daawadu waxay ka sameysana fiirin looma gudbinayo dadka shacbiga ee lama siinayo markay kuwaas ay soo maraan ayaa la gudbinaya farmasiga loo qaybinaya mar walbana baarisa socoto inspection oo la controlayo temperature-ka ay ku hayaan waa loo tagaa daawooyinka waa laga jagareeyaa in hab systemkaas ah oo xoog la saaro ayaa aad iyo aad ay u ahaan lahayd talo wanaagsan noqon lahayd wax markaas wixii la awoodo in la sameeyo laakiin mar hadiiba maabkii la garanayo habkii wixii loo baarayo la yaqaano waa la samayn karaa ayaan aaminsanahay in xooga la saaro oo dadka laga ilaaliyo daawooyinka sunta ah ee dhibaato fara badan keenaya ama side effect keenaya in laga ilaaliyo iyo daawooyinkan aan asalka ahayn laftirkooda inaysan soo galinba kooga xoo loo fadhiisto maxaan ku dhahaa meesha ay ka soo galayeen haddaan subjectka ka yara baxo Dr. Bashir waxaa tahay consultant qalliinka waliba dee ma garanaysaa dhakhaatiirta halka ugu dambeysa ilaa halka ku dhufta dad badan oo waxaa jira ka baqda qalliinka ama ma garanaysaa qalliin ba hadii la oranaya igada hada halkaas adigoo dadweynaha uga yara faa'iideynaya sida la socotid horta ereyga qalliin dadka way ka baqaan qalliin baa leedir bay leeyihiin aad ay uga cabsadaan laakiin waxaa jirta qalliin oo daruuri ah oo muhiim ah oo qofka bini aadanka ah lagu badbaadiyo qalliimada ayaa maxaan ku dhahaa laba nooc kala noqonaya mid emergency ah sida hadda appendicitis oo kale qofka hadduu kusoo boodo oo kale kaas asagaba lagama codsanayo xanuun iyo matagi iyo ay qandho iyo waxyaabo fara badan ayuu wataa qofkii aanba kaa diideynin oo xanuunka hayo oo leeyahay meeshan waa la jeexayaa markaasaad badbaadaysa haddii kale 6 hours oo kale 6 saacadood oo kale dhibaato wada badan oo aan gadaal looga soo noqonayn ayaa ku gaarayso marka qaliimo degdeg ah ayaa jiro for example inaysan dadka kuwaas way ogol yihiin muumale inay diidayaan hadday diidaanna waxaan dhihi lahaa
qofka bani aadamka waa la badbaadinaya yaan la diidin qalinyada noocaas oo kale qof jabay oo la kabaayo oo kale qof kusoo booda appendix oo kale qof dhiigga matagayo calooshii dilaacday gastritis ku dilaacdo waa in la daaweeyo la qalaa waxyaabahaas oo kale waa wax muhiim ah hadda waxa soo dhinaca kale selected waxa la operation selected operation waxa la kansar qofkii ku dhacay marka in laga saaro kala mindhicirkii meeshuu ka dhacay ama caloosha qaybtuu ku dhacay ama beerka meeshuu ku dhacay in laga bixi waa muhiim haddii aan laga saarin in dadka fahmaan inuu u dhiman karo si degdeg ah oo weli dhib ku jira inuu u dhimanayo marka in laga hortago ayagoo la siinayo daawooyin chemotherapy radiotherapy waxyaaba la dhaho oo haddana in ay ogolaadaan in qaliinka maxaa lagu dhahaa lagu deeyo laakiin dadka waxay ka baqayaan oo jira dad dhaqaatiir aan khibrad fiican lahayn in ayagana laga ilaaliyo oo dhakhtarka laftirkiisa wadankaas u taqaanid waxaa jira General Medical Council wax la dhaho marka dadkaas oo kale soo kontrolo dhakhtarkii laftirkiisa inuu yahay dhakhtar qabiira oo waxaan sameyn kara taasna waa arin meesha ku jirto muhiima laakiin shacbiga ama ummadda daawanaysa waxaan dhaynaa haddii qaliin loo baahdo oo muhiim ah oo qofka lagu badbaadinayo naftiisa ama dhibaato weyn oo u soo socoto ku soo socota gaari lahayd in laga ilaaliyo ay ogolaadaan in la qaliinkaas oo loo sameeyo qofkaas waa aad ayaad umahadsan tahay haddaynu kusoo noqono bal hadda sabjigeen iyo dawooyinkii Bashir markaas barbar dhigto wadankii iyo magaranaysaa wadamadan aan joogno ee magaranaysaa aad buu kala duwan halka maxaad ka oran lahayd waxa aad u wanaagsan maxaan ku dhahaa inta waxay isu qaban qaabeen wadamadan aan ku noolnahay waxay aad isu qaban qaabiyeen ay xooga saareen inaan daawo aan tayo lahayn la soo saarin inspection fara badan ay geliyaan wax CQC lahay ayaa jiro oo baara oo controla ururo la sameeyay oo lacag lagu siiyo dawladda siiso ay ka ilaalinayaan dadka shacabka inuusan gacanta u gelin daawo aan tayo lahayn ama daawo oo chemically khatar ah wax kale laga soo sameeyay in la sameeyo waxyaabahaas oo kale ilaan ummaddu waa isku wada mid waana awood loo leeyahay in waxyaabahaas xoogga la saaro oo la sameeyo ayaa ila wanaagsan warshadaha sameynaya laftirkooda waxaa jira dad baara oo kontrola daawadii ka soo baxda kiimika waxay ka samaysan tahay soo ogaado ilaa iyo tayada ku jirta laftirkiisa ogaado saan haday ka dhawaajinay hal xabo paracetamol 500 miligram ayaa inta la qaadaa la geeyo wadamada kamid ah wadamo kamid ah inta la geeyo waxa laga soo sameeynayaa 100 xabo ayaa lagaga soo dhigaya markii hal xabo aheed laga dhiga 100 xabo marka gramkii ku jiray cadadii ayaa kala qaybsamayso marka si hal xabo paracetamol madax xanuunka baabiinay aad u heshid waa inaad 100 xabo oo kuwaas u dhigma inaad qaatid taasoo hadhow si raacsiisan kiimika kale oo dhibaato leh marka waa in dadka looga hortagaa oo la dadaala la sameeyo xubnahaas oo ka hortagaya maxaan ku dhahaa controlaya daawooyinka oo maxaan feega ah runtii waan sii wadi lahayn base waqtiga ayaan hayaa in Bashir aad ayaan kaaga mahadcelinayaa adiga mudan dadweynaha qiimaha iyo qaayaha leh hawada naga daawanayo barnaamijka caafimaadka ee kala socoteen TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa waa aniga iyo bahda istuudiyaha oo idin leh assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh kusan ururka caafimaadka caruuriyo ciroole dadku wada cawdaane midnaan cayrinaynin oo caradeena hala iseeyo ururka caafimaadka